waa maxay Windows file sharing? Windows file sharing waa hab farsamad u suurtagelinayo hal computer iyo wixii ka badan inay wadaagaan xogo. Xogaha la wadaagi karo waxay noqon karaan file, documents, muuqaalo, codad iyo wixii la midka ah. Faa'iidada ay leedahay Windows file sharing waxay tahay tusaale goobta shaqada waxa ku tihiin 10 qofood. 10kiina waxa idinka dhaxeeyo shaqo. qof waliba wuxuu rabaa qof kale inuu file u gudbiyo. Si oo file u gudbiyo waxa waajibka ah inuu soo qaado USB drive kaas oo ku shubo xogta si uu u gudbiyo computerka kale. laakiinse haddii network sharing idinka dhaxeeyo qof walba oo soo computerkiisa joogo ay waxa awood u yeelan doonaa inuu la wadaago qofka kale feelashiisa. muuqaalkan dhaxaysa waxaan ku baran doonaa habka computerska aan file u wadaajin lahayn. waa hagaag haddaba si tababarkana u fulino waxaan isticmaali doonaa virtual machines. virtual machine-ka waxaan ugu jiro operating system-ka ku tababar lahayn oo ah Windows 10. haddaba si file la u share gareedo waxa mari doontaa 7 tilaabo. tilaabada ugu horeysa waxay tahay inaad hubido network interface card-ka uu leeyahay computerkaada. network interface card wuxuu yahay ujeedka loo isticmaalo waxaan kugu soo sheegay section 2 muuqaalkiisa koowaad. haddaba waxa mari doontaa tilaabadan soo socota. marka soo furto virtual box manager waxaad doorataa operating system-ka arabta network inaad saxdo. kadibna ka sii dooro settings, kadibna ka dooro networks, kadibna dooro adapter 1, kadibna ka dooro attached to, kadibna waxa ka doorata internal networks, kadib waxa dhahdaa okay. sidoo kale computer B dooro, waxa tagtaa settings, waxa ka sii tagtaa networks, waxa ka tagtaa adapter 1, waxa ka doorata attached to, waxa ka doorata internal networks, kadibna waxa dhahdaa okay. ujeedkan uu isticmaalay internal network waxay tahay wuxuu naga caawinayaa virtual machines-ka dhexdooda inay wadaagi karaan xogo. internal network haddii si kale aan kugu sheego tusaale haddii aad isticmaalaydo 2 computer oo caadi oo aad taaban karto waxa waajib kugu ah inaad hesho media ama fiilo. haddaba virtual machine-ka waxaan ka isticmaali doonaa internal media. waa hagaag tilaabada labaad waa inaad design gareedaa shared IP address. shared IP address waa tire number u suurtagelinaydo in labada computer ay awood u yeeshaan inay xogo isku diraan. IP address waxaan kugu soo sheegay section 4 muuqaalkiisa koowaad. haddaba si computerkaada IP loogu assign gareeyo waxaan kugu soo baray section 4 muuqaalkiisa labaad. laakiin tababarkan waan ku qaadan doonaa habka IP u sii lahayd. haddaba waxa u sii doontaa IP-ga sida tan. hagaag waxa tagtaa computer A waxa ka doorataa network adapter kaarkiisa, kadibna waxa dhahdaa right click, kadib waxa ka doorataa open network and internet settings, kadib waxa ka doorataa ethernet, kadib waxa ka doorataa change adapter options. waxa ku soo baxaya option kan dooro ethernet, kadib dhe right click, kadibna ka dooro properties. markuu soo baxo dialog box kan fadlan dooro version-ka aad rabto inaad siiso. anaga waxa dooranaa internet protocol version 4, kadibna waxa ka doorataa properties, kadib dooro user following IP address, kadibna geli box-yadan IP-ga aad ugu talagashay inaad ku share gareedo. anaga waxa isticmaaleynaa 10.0.0.1 computer 1 subnetkiisa waa kaya, kadib waxa leenahay okay, kadib waxa leenahay close, kadib iska xireynaa kan oo iska golis kareynaa. computer B sidoo kale waxa tageynaa network adapter kaarkiisa, kadib waxa leenahay right click, kadib waxa ka dooranaa open network and internet settings, sidoo kale asna waxa ka dooranaa ethernet, change adapter options, kadib waxa dooranaysaa adapter kaarkaada, kadib waxa dhahdaa right click, kadib ka dooro properties. asna sidoo kale waxa dooranaa internet protocol version 4, kadib waxa leenahay properties, sidoo kale user following IP address, kadib boxyadan waxa gelinaa IP-gii aan ugu talagalnaa asigana inaan gelino. sidoo kale waxa siinayna 10.0.0.2 sababtoo ah computer A wuxuu soo qaatay 10.1. kadib waxa dooranayna boxka labaad subnetka si automatic ah u gali doono, kadib waxa leenahay okay close, kuwan iska xireynaa. talaabada afraad waa inaad enable ugu dhigtaa computerkaada sharing features. sharing features waa feature ku suurtagelinayo in computerkaada uu aqbalo in xog loo soo diro iyo asna inuu diri karo. haddaba si enable feature-ka u furto waxa sameey doontaa sida tan. si aad u soo fasaxdo sharing setting-ka marka hore dooro computer A, kadib waxa ka doorataa calaamadda network, kadib right click, open network and sharing settings, kadib waxa ka doorataa ethernet, marka waxa doorataa change advanced sharing options, kadib waxa on ka dhigi doontaa meel kasta oo off ah sida turn on network discovery, turn on file sharing, kadib fur flartan hoose, kadibna dheh turn on sharing so everyone with network access can read and write. hoos u daadeg password waxa ka dhigtaa off, sidoo kale waxa dhahdaa save changes, kadib iska close gray. waxa tagaynaa computer B, asna waxa dooranayna calaamadda network, kadib waxa leenahay right click, open network and internet settings, waxa ka dooranayna ethernet, sidoo kale change advanced sharing options, asna waxa on ka dhigaynaa meel kasta oo off ah. ugu dambeyn password-ka off, asna save change, kadib waa iska close graynayna. talaabada shanaad waa tan ugu muhiimsan. computerkaada waxa soo siisaa IP addresses.
waxaa u baahan tahay IP-da soo siisay inay shaqaynayaan in kale inaad tijaabido. haddaba si aad u tijaabido waxaa mari doontaa marxaladahan. وهكاك waxaa soo gaarnay qaybtii tijaabada. waxaan tagnaa computer waxaan ka dooranaynaa start menu-ga, kadib waxaan ku qoraynaa meeshan CMD, kadib waxaan leenahay enter. ugu horeen waxaan hubinaynaa IP-ga aan qaadanay in systemku uu qaatay in kale. si aan u hubino waxaan qoraynaa IP config, kadib waxaan leenahay enter. hagaag waxaa ujeedaa meesha inaan soo gelinay IP addresskii oo ahaa 10.0.0.1. sidoo kale waxaan tagnaa computer B, sidoo kale asna waxaan ka dooranaynaa start menu-ga, waxaan ku qoraynaa CMD, waxaan leenahay fur CMD-ga, sidoo kale asna waxaan ku qoraynaa IP config. asna waxaa ujeednaa IP-ga aan gelino ah 10.0.0.2. waa hagaag anigu joogo computer B ee waxaan isku dayaa inaan la xiriiro computer A. si aan ula xiriiro CMD computer B anigu joogo waxaan qori doonaa ping, kadibna waxaan raacsiinayaa IP addresska computer A oo ah 10.0.0.1, kadib waxaan leeyahay enter. hagaag haddiiba aad aragto reply from network-ga u dirtay inta byte la diray daqiiqadaha ETTL haddii ku soo baxdo waxaa ogaataa in network-gaada uu yahay mid reachable ah ama communication uu dhex mari karo. hagaag computer A sidoo kale anigu computer A CMD-giisa joogo waxaan ku qori doonaa ping, kadib waxaan raacsiinayaa computer B IP addresskiisu ah 10.0.0.2, kadib waxaan leenahay enter. asagana sidoo kale waxaa ujeedaa inuu ku leeyahay reply from network ID-gii cabirkii la diray culayskiisa intuu dhan yahay, milliseconds-ki ay qaateen, time to leave-ki intuu yahay. hagaag meeshan waxaan ku heesanaa connection dhammaystiran. okay tilaabada laxaad waa tan ugu muhiimsan. engineer ahaan waxa waajib kugu ah inaad ogaato xogta aad la wadaagi lahayd shakhsiyaadka kale. haddaba annaga waxaan isticmaali doonaa folderka desktop-ka noo saaran ee ku qoran tahay shared folder. si folderkan u share gareeno waxaan mari doonaa tilaabooyinkan soo socda. waa hagaag computer A wuxuu diyaar u yahay inuu folderkan share gareeyo. folderkan haddii aan furno dhexdiisa waxaa ku jirta xog muhiim ah sida bank statement, money transfer, user passwords. haddaba si folderkan u share gareedo kor tago right click dheh, kadib waxaa ka doorataa give access to, kadib waxaa ka doorataa specific people, kadib waxaa doorataa flartan yar, kadib waxaa kasii doorataa everyone, kadib waxaa dhahdaa add. waxaa inta kusoo geli doona everyone, fur everyone, kadib ka doora read and write, kadibna dheh share. waxaa kusoo bixi doono in lagu share gareeyo folderkan, kadibna dheh done. halkaas waxaa ku share gareeday folderka magaciisu yahay shared folder. hagaag hambalyana ugu dambeyn waxaa soo share gareeday folderkaadi. hadda waxaad diyaar u tahay folderka aad soo share gareeday inaad la wadaagto kombiyuutarada kale sida computer B oo kale. haddaba si aad ula wadaagto waxaa waajib kugu ah inaad tagto computer B, kadibna aad soo access gareedo filekan. si aad soo access gareedo waxaa isticmaali doontaa waa hagaag computer A wuxuu soo share gareeyay folderkan. haddaba computer B wuxuu u baahan yahay inuu access gareeyo xogta computer A oo soo share gareeyay. si arrintaas ay u dhacdo waxaa muhiim ah inaad taqaano computer A IP addresskiisa. si aan u hubino computer A IP addresskiisa waxaan tegaynaa search box-ka ama start menu-ga, waxaan ku qoraynaa CMD, waxaan leenahay enter, waxaan ku qoraynaa IP config, kadib waxaan leenahay enter. now waa ognahay computer A IP-giisa inuu yahay 10.0.0.1. iska xireynaa waxaan tegaynaa computer B, waxaan taabanaynaa calaamada window-ga iyo ah, kadib meeshan waxaan ku qoraynaa labadan slash jifto, kadib IP addresska computer A oo ah 10.0.0.1, kadib waxaan leenahay okay markaa dhahno waxaana la weydiinayaa password iyo username. si aad u hesho username-ka iyo passwordka computer A waxaad tagtaa computer A, waxaa ka doorataa this PC, kadib waxaa dhahdaa right click, kadib waxaa ka doorataa properties. markuu soo baxo boxkan kaliya waxaa soo koobiyeysaa magaca inta ku qoran, kadib waxaa dhahdaa right click copy, ku paste garee xaggan oo kadibna geli passwordka computer A, kadibna dheh okay. markii intaas aad sameedo waxaad doorataa users computer A desktop, waxaa arkaynaa shared folderkii oo soo share gareeyay computer A. haddii aan furno waxaan u jeednaa bank statement, money transfer, user passwords. ugu waxaan joognaa computer B laakiinse waxaan ku jirnaa computer A. haddaba haddii aan furo bank statement waxba kuma qorno, sidoo kale haddii aan furo shared folderka inta bank statement waxba kuma qorno. bal fiiri computer B aan joogaa, waxaan ku qorayaa bank statement 000010 iyo wixii la midka, kadib waxaa leeyahay save. iska close gareynaya waxba kuma qorno. hadda haddii aan close gareeyo oo aan furo waxaa arkayaa xogtii aan kusoo qoray markii aan joogay computer B. hagaag meeshaas waxaa kaaga cad in labadan computer ay xog wadaagi karaan.